بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدنيال دمان waxaan salaamayaa shacbiga Soomaaliyeed iyo gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan saaka rabaa inaan la wadaago shacbiga iyo xildhibaanadaba in aniga iyo labadayda ku xigeenba uu noo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan wadajir u wada qadarinay qiimeynay xaaladda ayaamahan ka taagneed golaha shacabka. kadib markaan si qoto dheer uga doodnay waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo taasoo aan si arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloon arrinta looga wada hadlo, taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayno in arrinta sida xikmadda leh uu soo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan, laakiin uu hadda arrintaasi noo soo jeediyey. waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi uu madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay wixii oo dambe oo sida loo samaynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono, annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed, in shacbiga looga turo dhagxumo iyo arrimo walwal iyo walbahaar gelinaya laga ilaalinayo ayaan arrintaasi u ogolaanay in aan wada hadalno oo aan wada heshiino in miis la fariisto la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta laysku raaco, wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo si arrimaha dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado. alxamdulilah, hadda wixii ka dambeey dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan u soo ogolaanay ay noola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho, badqabka iyo baarlamaanka iyo wadajirnimada iyo midnimada baarlamaankan in la ilaasho ayaan ka codsanayaa in ay arrintaasi nagu ayidaan garabkana nala qabtaan oo markaa aan meeshii habboon aan geyno. walxamdulilah wakafa allahu lmu'miniina alqitaal, يعني wax dagaal ah dhibaato ah ma jirto, ilaah baa mahadda iska leh. intaasaan rabay inaan idinla wadaago in madaxweynaha uu soo jeediyey hakintaasi annagana aan ka ogolaanay rasmi ahaan. waxaan aad markale ugu mahad celinayaa ayagan aqalkii sare oo arrintan oo ka soo qaatay qayb weyn oo soo bisleeyay, inkastoo markii dambe hadda ay qayb weyn ka soo qaatay oo arrintan soo gaarsiiyey meel wanaagsan. haddana madaxweynaha uu si fiican nooga ogolaaday. aad iyo aad baad mahadsantihiin. ballanteenu waxaa weeye inaan ku dadaalno midnimada iyo badqabka baarlamaanka. baarlamaanka waa muhiim, baarlamaanka waxaa weeyaan gundhigii dowladda weeyaan, yaan lagu dheerin. marka min fadlakum ixsaanakum arrintaas lagu ayida, wixii ka dambeeyana faahfaahinteedana madaxweynaha ka sugayna annagana waa idin soo gaarsiin doonaa. aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.